maanta kaamirada aniga waa isku wareernay xoogay maaragtay kaamirada aniga waa isku wareersanahay kaamirada horta asalkeeda in laga dhunto waa saan hore idinku sheegay salaamullaahi calaykum soo dhawaada dhammaan kulligeen meel walba aad dunida ka joogtay waxaan leeyahay soo dhawaada macnaha waxa waageed hore waxaan is dhihi jiray maaragtaa macnaha dadka dawladda ku jiro dhibay qabaan dadka dawladda ku jiro rafaaday qabaan dadka dawladda ku jiro meel walba tigi ma karaan soo baashaali ma karaan waxay soo baashaali karin waxaa lagu leeyahay meeshaas fadhiisama karo xagga roogsama karo waxa waaye ninka dawladda ku jiro maaragtay sankow farta gashtay sarwaalkiisa feereysnayn uu soo baxay hada gabsaarkii hata ku jira walba wax cad aniga iyo wax cad isku maraynin anaa madow marka maadaama madoobahay wax cad way madoobayaan mana xirto laakiin waa lay keenay qofta ii keentana khayr allah siiyay maadaama ila jeclaatay aniga cadaanne isma qaabilnoba sideen dhamaanba fiidiyoyaasheed qofta hore u socoto way arki kartaa inaana cadaan iyo aniga isqaabishanaynin maadaama lay keenay tijaabo saasaan soo qaatay marka si doontaa yeel cadaanka dadka ay soo sheegi doona saa ku ahay ana cadaan ma ku fiicin kulli calaa xaal waxaa imaaday cabdi cajuun wuxuu yiri aniga waxaa ahaa jiray inaa idinka soo hordhaca ma rabi laakiin sheekadaas waxay qusaysaa dadka social media soo galay aniga social media inuu saas yaa u malay ma jirin waxaana xirdhaa dadka waxaa ah indha shareerka xirto u dambeysay banaanka markaa aadayo ilaa karoonihii aan dhihi karaa waxaana igu kalifay markaas karoono awgiisa u xirtay haddana waa nafteed waa la qabsaday macnaha markaad kaamirada hor fadhido iyo markaa banaanka socoto different u dhaxayso dadka dhanna way ogyihiin haddayna is-indhatiraynin indhatiraa laakiin qofta is-indhatirays iiday u taalaa maadaama different ahay oo shaqahaayo macnaha dadaa waxay yireen haa kaamirada markaa hor fadhido nuuc kalaa tahay hababababa waxa waaye been baa sheegay indha shareerka waxay u xiratay baadilaad camal maant aad marka aniga inta haddaan koreed laysoo bahma dilin haddaan waxa waaye owdaa naqday in laysoo bahdila diyaaru ma ihi waxaa kaloo jirto marka yaa idinkaaga hor dhicina bal dhageysta cabdi cajuun oo dhahayo macnaha safiya tusmasaan aniga ula kulma camal kadibna barbaleen iyo dhibaata ila soo fuul saartay dhageysta iska dhageysaan ku dhax aawe meeshaan u joogay waxaanu siyaasiyiinta markaan wareysanayno markaa waxa weeyaan taageerayaasha dareenka ay qabaan ayaan ka wareysanaynaa yaa dadka anigu dhiskooda iyo wadankooda kama shaqeeyo siyaasigu dhiskooda iyo anu laakiin farxadooda ka shaqeeya iyo qoskoodii marka wixii hay'ad dhaqmina sidii siyaasiga sidii fanaanka la dhaqan beelo waayahay fanaan cabdi ciise cajuun inta badan waxaa la arkaa oo soo saara heeso waxa weeyaan uu la qaadayo haweenka fanaaniinta ah isagiyo gabar fanaanada oo heeso wada saaray intaan ku ogahay ma jirto ama ma arag hees cabdi ciise cajuun kaligii soo qaaday dad su'aalay ka qabaan horta ma jirtaa aan ku weydiiyey hees keligaa aad soo saartay waan fanaanadii kula qaaday inuu cabdi ciise cajuun niyo mid baa ku jirta YouTube-ka laakiin uma sameeynin video hadda hagaas baa iskale heesa laakiin ta keligaa soo saaray video u sameeyay ma jirto waan soo wada inta badan habeenkaad waxa weeyaan la soo saartaa oo waxa weeyaan fanaanad baa waxa weeyaan heesta kula soo saartaa hadama nin ma leesile maxaad ku dooratay inaad waxa weeyaan hees keligaa aad soo qaadi weydo aad ka badsato ama choice-kaaga u noqotay inaad waxa weeyaan fanaanada la heesto haweena waxa weeye arrintaa maxaa u dood waxa waliba xilli bilay marka waqtiga aan kuwan yacnihii aan u helay un baanan kuwana u helin muhiimadda meesha tala waxay tahay dee waan weli janiskoodii baan iisoo marin waan soo saaraya
laakiin dabcan waxaad marka fanka laga hadlayo si gaara xiisa gaar iyo macna gaar ay ku samaysaa inaad waxa weeyaan heesta fanaaniinta wada saartaan wax loo walaalaha iyo fanaaniinaho waa kulli qofan ka xumahay inaan leeyahay ma jirto mid aan ku faraxsan mooyane way okay hadda diiso hadiiba dabcan fanaaniinta haatan ayaad ka mid tahay waxaa jira fanaaniintii hore ee waxa weeyaan Soomaalida qof waliba dee marka fiilkiisa cid buu dabcan u ah role model oo ku daydaa ama wadada ku dayata fanaaniinta hore ama waa biri ha ahaato ama fanaaniinta hore ee Soomaalida marka la isdultaago intii fanka iga horeysayba ha horta waan ku daydaa waan jecelahay inaan waan dhageystay sooda way dadka gaar laakiin xusub Muuse Ismaaciil Qalno kale way Axmed Moogo kale way محمد أحمد وكله أحمد قاعد وكله أفرت سووا waxay ku jiraan inta sida gaarka u dhageysto taageero hadiiba ay dhici lahayd maadaama haweenka waxa weeyaan hubigaagu inaad la heesto inta badan uu badan yahay fanaaniintii hablaha ahaa hobolladii hore ee waxa weeyaan Soomaalida dib loo orin lahaa waxa weeyaan fanaanadaas maanta suurtagal ay noqonaysaa ama matalan fanaanad ka mid ah hobolladii waaweynaa bal maanta waxa weeyaan xabaalaha laga soo toosiyo lixdo waxa weeyaan fanka waqtigan Cabdi Ciise hawelo farsadu kula heeso teeba dooranaysa wariya beel waxa ku sheega kuwa nool wax laga weydiin anaga mid mateeyahan qabri baa laga kuwa nool la laga weydiin ujeedkaygu waa maxay ujeedkaygu waa Cabdi Ciise hadiiba waxa weeyaan si gaar ah hubigiisu yahay dumarka la heeso haduuba qalin la iyo sheegay waxa weeyaan fanaaniintii waaweynaa kuwa taageero hablaha ayuu taageeray waxa weeyaan hadii maanta la yiraahdo dib baa xabaalaha looga soo saaraya yaa oo fanka haatan bay ka mid noqonaysaa teeba oo la waleesla oo dooran lahayd ilaahay waxa ila qurux badan baylo way inaad fanaaniinta nool horta waxa iga weydiiso oo taa warinta ku hadhay yaa ku dhimanay doonaysa inaad leeystaabe laakiin waligii fanaan la weydiinay ma arag cid dambe u malayn baa in la weydiin doono su'aasha weydiisay waxa ku sheegaya dhinac markaad ka tagtay dambi baa noqon waa in faataxada umar mooyane heblayan jalaal lahayn ay soo noolaato in Allah heeso anigu inaad jawaab ma haye waxaad sameysay ay u ducaynayeen faataxada umar waxaan ku sheegaya hadda bilaaba su'aasha aanad ka marmin kuwa noole ay dhimanayaa kuwa haray leeyahay dadii kuwa dhintay u duceeyay inaad yaro faataxada umar taas haday la qurxan faataxada inuu marayna inta badan marka laga tago adigu halabuurnimadaada iyo heesaha aad uriso ama cid kale aad u dhiibtay adigu baad qaadid waxa jira heesa kale oo halabuurka kale aad ka qaadato waxa aad ku luuqaysaa jira si fiican fanka dambena imika sida inta badan la arko way jirtaa fanaaniin haweena oo imika halabuurkii iyo urintii waxa weeyaan qayb ka noqday oo midhaha laga qaato heesaha sameeya sax fanaaniinta haweenka mid la heestaa oo mise midhahana waxa weeyaan waad ka qaadataa heesoodana waad qaadaa niyo horta haweenka la heesay mid abwaanada kuma jirnay heesaha abwaanadu baan ka qaaday laakiin imkaan doonay inaan heeso ay gabadha leedahay hore maan qaadin hadda laakiin rabaa inaan qaado inaan halkan aad iyo aad uga salaamayo oo la yiraahdo inta xasan daahir aad iyo aad u sugan fiican baan hadda ilaa 3 ilaa 4 leedahay sawda iyadana aad baan u salaamaya hadda waan kula kaftamay dad badan waxay yiraahdaan Cabdi Ciise inta badan wuxuu la soo heesaa haweenka ama hablaha shalmadaha xagoogta halka aanu waxa weeyaan inta badan lagu arago ma aanu la soo heesin kuwa sheeladaha ku labista jawaab waxaad u haysaa dadka aragtida waxa ila quruxdan beelado dhaxan wajitaaye inaan kala tagneen aad eeg imka suuraysan mayno yaani laakiin waxay noqdeen personal attack marka yaani masaani baynu soo hablaha anigu la heesaa inay shalmad xidhaan iyo inay sheelad xidhaan adaabadii oo iga waroonay ila dharku naga dhaxeeyay wal adigu halkan ba kamaan eegine adigu waxa laga keentay inta badan maadaama bulshada aan ku dhex jirno oo waxa weeyaan xogaha iyaguna waxay ku saabsan yihiin dareenada iyo inta badan faalooyinka horta bulshada ka soo noqda marka horta inta badan anigu waa dhageysa anigu inta habloon la heesaa sharaf bay mudayn haday shalmad xirtay haday sheelad xirtaba wuxuu sharaf bay mudayn kuwa dambe ee aan la heesii doonana haday shalmad xirana idinka halkan waligeys horta su'aalaha caankana yani wax gaaro aniga isu yani muqaaran aniga igu tala wari waxaan mid qaar gooniyo aniga igu tala gashay maya hadaa su'aalaha caankana dabcan qof kasta ama shakhsi kasta dad baa taageerayaal inta badan faalooyinka aan ku soo gabiyo
هذا شلمت حدان واي هذا شلمت حدان بهبلها ولا هي وانا مانية واي كوان له هسي كوا يدمن اللي يسدون وانا مانية وحي حدان ندي ريال تي في بابا كور هي إذن كوم دوق سوي جواب لأن شلمت حدان هي شلمت حدان عبد العيسو إما كعبد العيسو عجون وأهني فنان يا أبوانو عام كه إيش كيسونه هرجيسية أياته مركب ورنا عبد العيسى عادية أياته والحرطة فرق جودة حياة عبد العيسى عجون كان ما أنت عام كه شو يصير وين حويان عيوب تقامر صح يا عبد العيسى هو حويان عادي جاه والله صورة يعني إنه لهان قاب كستاين نقطة نيورتا والله بلو صاحب هذا هو اللي حنك سنة ما أقوله وي حالة عادية في صنعه ما يا كبو وحنا متقنع وي قلت احترام بنقول شو قلنا اللي سوريسن مننا يمكن وحق و هذا كأقول رمو عبد العيسى وري عبد العيسى عبد العيسى هري نفريوها مش دونا مرا هلكو دونا كوغيلا برتو دونا فريستا عدو دونا راعة لكن عبد العيسى هاي مكون مد يعني أذوق حالة بدن أو عن مودو دمنا ويلا هاي عن مودو حالة دبل هاي وكل يعني كانوا شيء يسيو حلا هاي ويلكاس uu ka sheegtay aniga saas u maleemayeen sheekada yaa waana arkaa dad la caynaayo dadka marka la caayo la iska dacaydayeen anigana free amal waa iska qoslaa wax culaas iguma hayso oo waxaan islaahay yaa hadii la yiraahdo saaro yeelo iyo saaro yeelo iyo hadii la yiraahdo waa iskaga faraxsan oo iska qoslaa waxaan qoslaayana ma ahan ana qof attack ku sameeynaayo laakiin waxaan islaahay waa dadka dhanba waa qoslayna maxaa aday ku qadinaayo laadeen marka yaa asoo tabarta cadayo oo meel istaagay markaa waa u jeedin macnaha wareysiga macnaha yaa aniga hore u sheegay qofti ilbaxnim rabto inay soo caan baxdo hadday waayeel tahayna ciraday banaanka soo dhiganee hadday gabar yar tahayna naaskay soo lule haddou yahayna dhaxeenna cirada amba nin la dhahayo wadaad uu ahaa jiro oo ewel wadaad hore uu ahaa la dhahayo heesaayo oo hees ku dawmariyay laba biri gudaheed wuxuu naqaha caan yaa maantadan kula hadlayo aniga waxyaalaha qaarkood markaan sheego waa laga yaabaa qof la arkay inay isoo qaadato yaa anigana markaa dan leeyahay qof inaan dhag u dhiga ma rabo waxaan qof dheh maanta hada waa siiwiif ahaan ku dhaadhax soo celi siiwiif yaa wiifow naftiga qaaday maanta iiga egyahaan ku dhahay maracad iyo anigaba qabrigi leeha noo ahaato tantoo aan heshiinayno iiminaa heshiis kala qaado doono uma eko fahante idinku dheeraamaayi halahaasa idinla wadaagi rabay anigana waxaan leeyahay dadka rabo hadda kadib inay soo caan baxaan cirada banaanka gabar hadday tahana niikada iyo naaska saas waaye sasaa idin leh ballantayna waa haddaba cirada banaanka isku soo dhigan runaa umalaynayaa ani ciradayda waa ii qarsan tahay ma rabo inaan ciradayda banaanka soo dhigo mana rabo waxaan jeclahay inaan dadka u sheekeeyo banaanka soo fadhiisto iska baabaashaalo macnaha stress free wax kasta inaan soo wadaago yaa si aan geesi u noqdo cirada banaanka waa imaaysaa waaba iska imaaysaa sheekada le dhac inikana like-ta iyo share-ta ka iloobina qeyr baa idin rajeeyay anigii gabasaarkayga cad waxaa idin leeyahay waa idin salaanay yaa waa idin salaanay salaan wacan oo wanaagsan maanta arrin la arka mugdi waaye haddana idinkaasu hadli doontiin hadda ma idinla hadlaayi waxaa idin dhahay commentiga ma xirayaasu taasaa rabaa inaa ogaadee commentiga ma xirno commenti kusoo sheega gabasaarka cad
مسوقا دا أجين ومسكا دافا حدا وادين شاقي أنا مقودوقي ماهن هيه أصحاب تقرب هذه رجي